waxyaabo guud oo ummaddu ay ku heshiisay oo aan dhib ummadda u keenin dadana waxyaabaha matalan ay tahay iska ilaaliyo matalan waxaa ka mid a mararka qaarkood sirta ciidamada kuleta in la iska ilaaliyo inaan la kicinin matalan dadka inaan isku dirin matalan haddii matalan alxamdulillah ilahay muslimiin baan nahay waddankeena ilaahay baa inoo naxariistayo muslimiin baan nahay matalan 100% laakiin haddii matalan waddankaas dad kale diintiina ay degan yihiin in la iska ilaaliyo matalan in diin gaara wax laga sheego waayo waxay keenaysaa dagaal soxiyay keenaysaa dadkeena isleeyaan bay keenaysaa marka xorriyadda saxaafadda waxa weeyaan xaq uu qofku u leeyahay inuu cabiro ra'yigiisa inuu mataqaanaa xorriyadda saxaafadda waxaa ka mid ah xaq uu qofku u leeyahay inuu xog helo haddii aadan xog hayn waxaad cabiraysaaba waxay ka mid tahay dadka inaan xogta laga qarinin inta suurtagal ay tahay in loo sheego iyadoo mas-uuliyaddii la ilaalinayo dabcuna mawduucaad u balaana weyaan way dhici kartaa mustaqbalka in intaa kasii faafayna haddii baa marka waqti walkooda waan soo goobaya waa mahadsan su-aalaha kale intaanaan gelin isla su-aashaas jawaabteeda si aan ku jirno abuukar abdaligaa rabaa inaan siiyo abuukar waxaa laga yaabaa warbaahinta madaxa bannaan marka la dhaho haddaan soomaali nahay inteed badan ay maskaxda kusoo dhacdo idaacad ama telefishin gaar loo leeyahay inay nagu soo dhacdaan laga yaaba marka warbaahin madax bannaan marka la leeyahay madax bannaanidaas waxaa laga wada dhifo aada u mahadsan tahay dhammaan ka qaybgalayaasha iyo martidoo salaamaya madax banaanidu waxaa ka mid ah inaad ka madax banaan tahay fikradaada waxaa ka mid ah inaad ka madax banaan tahay fikrad ama faragelinta cidda markaas maamulka gacanta ku haysa madax banaanida waxaa ka mid ah in shirkadaha ama cidda ku siisa xayeysiiska aysan kugu yeelan saameyn faragelineed oo wax ka bedeli karta habkii aada bulshada ugu talinay madax banaanidu waa madax banaani ka bilaabanaysa warbaahinta iyo cidda asaastay isla markaasna maraysa tifaftirka maraysa weriyaha maraysa dadka la macaamila madax banaanidu marka waxay isugu jirtaa madax banaani maaliyadeed inay helaan madax banaani oo dhinaca editorialka ama tifaftirka inay helaan madax banaani dhinaca fikirka siyaasadda inay hesho madax banaani inaan la faragelin oo wax loo meerinin la helo marka madax banaanidu waa ballaaran tahay laakiin waa qaybahaas qofka haddii uusan fikirkiisa iyo fikradaha siyaasadeed ka madax banaanayn war caafimaad qaba oo dhexdhexaada bulshada uma telin karo idaacadan haddii ay tahay si aan kaa ilo lahayn dowladaba ay laftirkeeda suurtagal marka inay maqleen oo warkeeda iyo waxay sidee laba siba haddii idaacaddu uu xisbi leeyahay ma madax banaanaan karto laakiin haddii idaacaddu tahay public oo hantida bulshada lagu maalgeliyo waa tan ugu madax banaan dalka inay noqoto weliba oo kuwa gaarka loo leeyahay ka madax banaan idaacadda ama warbaahinta publicu leeyahay ama dadweynaha leeyahay oo public broadcastingka la dhaho waa kuwa ugu madax banaan aan la faragelin karin oo xeer gaara loo sameeyaba marka waa madax banaan aada u mahadsan yahay diiniyaan rabaa inaan siiyo diini meeshan waxaa kaloo noogu qoran marka la yidhaahdo waxtarka madax banaanida warbaahinta ee wadamada soo kabanaya ama kasoo kabanaya balaadaha iyo xadka xorriyadda iclaamka xadka laga hadlaayo ee xorriyadda ee la leeyahay iclaamka waxaan ognahay marka jaamacadaha aan dhiganaynay iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iskuullada waxaa jiray qofka in tacbiir loo diro oo la yidhaahdo maqaal soo diyaari oo aan 300 eray 200 eray ka badnayn waxaa laga wadaa markaad hadlaysid hadal tiradiisa intaas tahay ama wargeyska intaas kusoo qoran idaacadda kasii daaya laga wadaa mise xadkan la leeyahay wax kalaa loola jeeda haddii loola jeeda se maxaa waay بسم الله الرحمن الرحيم أمان على في حياشة برنامجكم والسلام يا حرية أما حدك لقى هطلع وحواي هذا عني سؤالا ربينا كجوابه أدينا سؤال كلاجي مركا هذا واحد حددي إن أنا نيتي حرية صحافة أما ربينا كجواب ذات المدي وصحافة حددي سكري كجواب تسأله أبو يروقو بسيسا كاسوان أنا وحنا قوا qofka saxafiga ma ogida kulli hadda aniga macallimiintii professorada wax sheegi doonaan laakiin waa iga rumaysan yahay laakiin anagu markaan saxaafadda baranayno waxaana la bari jiray marka hore inuu jiro laba qof raba inuu war sheego iyo qof raba inuu shaqadiisu labadaas qofood waxay isku hayeen Tom and Jerry marka qofka aad rabto marka koowaad labada koowaad waa xuquuq asaasi ah iyo xuquuq dastuuri ah in aad muhiimadaadana ku shaqaysan karto muhiimadaaduna ay tahay war xaqiiqo ku dhisan oo maslaxo ku dhisan in aad sheegto tii maslaxada ku dhisneed laftigeeda
ayaa haddana waxaa laga yaabaa dadka markaas xukunka haysta inay iyagu si kale u arkaan. marka waxaa lagu leeyahay war ninkan xuquuqu uu leeyahay, xaqu uu leeyahay inuu si xor ah wixii xaqiiqo ah oo maslaxa ku jirto oo u sheego. waa inay aada xor u tahay wax run ah oo haddana maslaxa ku dhisan ilaa shay. laakiin meesha xadka ka imaanaya waxa waaye wixii labadaas ka baxsan oo aan xaqiiqana ahayn, wax maslaxa ummadda uu faa'iiday ka faa'iidayna la arki. labadaasaa waxaa la rabaa sharciguna inuu kaa xadeeyo, adiga moralkaaga ase qofka xirfadlahaana inuu kaa xadeeyo. marka xuduud halkaasu ka bilaabanayo waa sharci iyo mabda isla socda. ma ku xirana waa sharci iyo mabda isla socda. mabda'ana waxa waaye sida dhakhtarka uu xor ugu yahay inuu xirfadiisa ku shaqaysto, inuu dadka daaweeyo, adigina inaad xor u tahay ka saxafi ahaan inaad war xaqiiqo ah oo maslaxadda ummadaasaad ka dhex tabinayso ku salaysan inaad jiiso. haddii intaa lagaa xanibo oo ninkii mas-uuliyaddiisa ahayd in wax la qariyo oo kaa xanibo, adiga marka tartanka wuxuu idinka dhexeeya sharciga dhexdiisaad ku tartamaysaa. macnaha meesha lagu tartamayo ma aha wax kale, waa dhinacii mabaadi'da dhexdiisiaad ku tartamaysaa. in lagu ogolaado inta la qarinaayo inay tahay intii sharcigu kuu ogolaa. matalan intii su-aasho kale abuukar aad ka weydiiso kale saxaafadda xorta oo madaxa bannaan iyo saxaafadda dowladda. aniga waxaan qabaa hadda waxaan joognaa bilow fiican. bilow fiican adinka waxaa laga yaabaa saxafiyiinta hadda halkan jooga ayadoo nidaamku shuuci yahay ama socialist yahay oo dowladda ay dictatorship tahay oo dalka dhan ay hal idaacad ka jirto, hal joornaalna uu ka jiro, subaxiina censorshipku ay halkii baragraafood sheegto ay ku mashquulayaan ereygan muxuu ula jeeda. ma fahamta? aniga tusaale yar haddaan siiyo fursadda lagu faa'iiday dhalinyarada, waxaan qoray 2 kolom oo ka sheekeynaya gabay yaroo xigmad. waxaa ku qoran nin maaragtay gabayaa ah oo hadal xigmada sheegaya oo dhahaya markii uu da' noqday oo tabar yareeyey ayuu wuxuu leeyahay laba waa igu hartay, laba waa iga hartay, laba waa macnaha waa tabar daraysay, laba waa qoyday, laba waa qallashay. macnaa xubnihiisii jirkiisii say u tabar dareeyeen tilmaamaya. marka waxaa igu haray hawiyahum guri. yacni labadaas iga hari maysa inta aan noolahay ilaa aakhira saaca hawiyahum guri waa igu taagnaanaya. laakiin laba waa i qoyday waa labada indhood, laba waa i qar daraatay waa la fahmi karaan malaynaya. laba waa i qar daraatay macnaha waa tabar daraaday da markaa noqotid kaadidii iyo wixii. marka xikmaddii markaan sheegay isla markiiba dadka mas-uuliyiinta ah oo markaas dalka xukumayay dad da-ahay u badnaayeen. dad da-ay u badnaayeen laga bilaabo madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa iyo wasiiradiisa iyo xisbiga xisbulxaakimka. yacni waxay noqotay 3 maalmood magaalada dhan buuqay ka abo. aniguna ujeedkaygu waxay ahayd xikmaddaas oo aan u arkay inay xikmad tahay inaan mujtamaca la wadaago. ninna wuxuu leeyahay war waxaan cuqdadaa ku taagan wuxuu leeyahay war waxaan la sheegayo ama wax kale ku hoos qarsan. marka ninkii in warka qariyo la rabay ama siyaasad dartiis ha ahaado ama hay-adahan sirdoonka ahaadee labadiiba warka way xadidaya. marka waxaa la rabaa ninkaasna xuduudkiisa inaan lagu gudbino sida hadda macallinku sheegu yiri wixii sirta qaranka ama amniga qaranka saameynayo adiga xorriyadaada ka mid maaha. waa inuu saxafigu fahmo. laakiin inta haddana loogu talagalo mujtamaca in lagu dhiso garaadkooda iyo horumarkooda waxaa la rabaa intaas ninkaasna inuu kaa durko ninka xaakimka ah oo kaa sikado maaragtay qofkan kale ee maaragtay sida hay-adaha sirdoonka ay kaa sikado amasan. waxaan rabaa axmed cabdi caynab inaan siiyo. axmed isla su-aashaan rabaa inaan ku weydiiyo xadka xorriyadda warbaahinta maxaa loola jeedaa? xadkaas intuu ka bilowdaa intuu isku dhamaadaa? way samaysan tahay soomana waa mahad celinaya iyo asxaabta kasoo qayb galay iyo maamulkaba. waxaan rabaa xorriyadda warbaahinta inaan kusoo ku qeexo afar jumladood ama 4 eray. xorriyadda warbaahinta waxaa la dhahaa waa inay tahay mid ka madax bannaan marka koowaad saameyn dhaqaale oo inta lacag lagu siiyo aan lagaa bedeli karin wax xaqiiqdu tahay wax ka bedelinaa sheegto aan lagu beeri karin. waa inay tahay midda labaad mid ka madax bannaan saameyn afkaareed
ideology inaan lagugu saameyn karin oo aada dhihi karin anigu afkaarta iyo ciddaasaan aaminsanahay iyo waxaasaan wataa oo ayn ciddaas ku saameyn karin ay kaa leexin karin xaqiiqadu waxay tahay sidoo kale waa inay tahay mid ka madax bannaan saameyn military oo inta ciidanku soo weeraro gurigaaga yimaado uusan kugu qasbi karin wax aadan rabin ama wax xaqiiqdu ay tahay inaad sheegto midda ugu dambeyso waa inay tahay waa inaan lagu saameyn karin wax la xiriira ethnic iyo asalkaaga iyo ama qabiil waxaana anigoo aan dhahan oo kale waa inaan lagu saameyn karin oo aysan noqon karin warbaahintaadu mid cid gaara u fidmaysa marka laga reebo midda ugu kore uu sheegay oo ah warbaahinta u khidmaysa xisbiyada iyo midda u khidmaysa gobolada gaarka ah iyo ururada gaarka ah iyo maxaa ku rahda qabiilada gaarka ah marka intaas marka warbaahintu ay ka madax bannaan tahay waxay awood u leedahay inay sheegto waxa xaqiiqdu ay tahay ayadoo cidna aan u xaqiiraynin oo cid kasta ka madax bannaan marka xadkeeduna mar kasta waxa uu ku go-an yahay shuruucda dalka u taalla iyo shuruucda caalamiga ah ee waddankaas laga aqoonsan yahay international law ee waddankaas uu ka mid yahay marka haddii tusaale waddanka shuruucda u taalo ay ka mid tahay in sidii ustaad beni uu sheegay oo kale inaan laga hadlin wax ku saabsan ciidanka iyo security-ga warbaahintaas waxay ku xadgudbaanaysaa halkaas ma gudbto waayo shuruucda dalka oo warbaahintu ay ka dhex jirto ayaa diidaya in warbaahintu ka hadasho qodobada noocaas oo kale marka waxaan dhihi karaa xayndaabyada sidoo kale xayndaabyada celinaya waxaa ka mid ah xayndaabka diimeed waxaa ka mid ah xayndaabka dadku waxay leeyihin waxa la yidhaha social norms ama waxyaaba bulshadu ay mudahar oo aan laga taaban karin waxyaabahaasoo inay ka hadasho waxay ka mid tahay xayndaabka haddii ay ka hadlaysana si cilmiyeysan oo sistemiga oo aayar inay uga hadasho oo ayna uga hadlin kaba soo qaad haddii tusaale haddii dalku uu leeyahay ama ummadda ay leedahay caado xun oo aad u jecel yihiin oo aan laga reebi karin macnaha hadday leedahay caadadaas in isla markii warbaahinta kusoo boodo oo ay si xooggan uga hadasho jeexjeexdo warbaahinta wax u dhibaysaa ama dadkii moralkooda wax yeelanaysaa laakiin markaasoo kale waa in boolis siyaasad inta loo dejiyo si aayara looga hadlo oo looga reebo sistemiga oo aan dadku ay fahmi karin oo waqti dheer qaadanaysa marka waxaan dhihi lahaa xadku halkaas noqonaya maasida